السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبنا قيمة بدنا كحورن channel كددوينها يوتيوب soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idiin sidaa qiso runtii aad u cajaa'ib badan balse intaynaan qisada maanta u guda galin runtii si weyn baan idinkaga mahadcelinayaa sidaad muuqaaladan soo geliya like-ta u saaraysaan subscribe-ta ee channelkeena dadweynaha siinaysaan aad kusoo biiraysaan ti kulli channelka waxaa ku xidhan dad waxgarad oo si fiican ila shaqaynaya maasha allah like-tiina iyo share-tiinaba meel la kala dhigo lalayahay half bilyankiina inaanu qorsakaara ku qabanno wax yar baa nooga dhiman sidani aynu haatan ku soconno haddii aan kusii wadno half milyan inaanu gaadhno saddex maalmood maalmood PewDiePie miyaa sheeroodii sameeyey waxaan ula jeedaa 3 bilood inala dhaafi mayso waa tahay haddaba madax aynu u galno qisadeenna maanta oo aynu ku soo qadan doonno gabadh masiibo ah oo runtii aad la yaab badan wixii channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir soo dhawaada saaxiibayaal mar kale baryahan waxaynu u badanay dhanka iyo Asia siiba Korea dhacdadani aan maanta muuqaalkan gudahaysa idin kula wadaagi doono ayaa waxay ka mid noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna hadalhaynta badnaa sagaashameeyadii gudaha Korea kiiskan ayaa waxa uu dhacay taariikhdu markay ahayd 31 bishii August sanadku markuu ahaa 1997 miilaadiga dhacdadanina cidda ka dambeysay ee mas'uulka ka ahayd amaba se dambiilaha ahayd ayaa waxay ahayd gabadh waqtigaasi 28 jir ahayd oo lagu magacaabo Tan Hanjo gabadhani haddaba lagu magacaabo Tan ayaa waqtigii ay dambigaasi geysanaysay waxay ahayd welibana uurkeedaasi waxa uu ku jiray bishii 8aad yacni qof aad u culus bay ahayd horta shakhsiyadeeda cid ay tahay iyo sababaha ku kalifay inay falkaasi ku kacdo dib ayaynu ka sharaxi doonaa bal imika iyo haatan aynu gudagallo dhacdadeedii iyo habkii ay u dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhani waxay soo booqatay goob mool ah oo ka buuxeen dad aad u tiro badan oo waqtigaasi shopping samaysanayay meeshii ayay dhex marmartay ayadoo dadka feereynaysa dabcan iyada umaana tegin moolka in ay wax ka gadato oo waxay u socotay hawlo kale dadkii bay xooga yara indhaysay dhex socotay wax yar kadib ayadoo moolkii ka soo yara baxday ayaa waxay aragtay gabadh yar oo waqtigaasi sii galaysay iskuulkeedii gabadhan yar oo lagu magacaabi jiray Pap Turunturunari ayaa waxa gacanta u haadisay gabadhii yareed bay joojisay way u dhool cadaysay way salaamtay yareed iska waran eedo ma fiican tahay ma iskuulka tagaysaa Fariid baa tahay haya iskuulkaaga gal ayaa ku turtay yareed tayar waxay ahayd tuyaro aad u qurux badan oo bashaashada ahayd daacadna iska ahayd deetana yareed waxay ku tiri haye iskuulkeedii bayna iska gashay balse gabadhani ayada ah ee Tan iskuulkii kamaana tegniyadu ilaa iyo intii ay ka gaadhaysay waqtigii fasaxaadda iskuulka iyada waxay ku wareegaysay wanagaarkii iskuulka deetana markii ardaydii iskuulka laga soo fasaxay ayaa waxay bilowday inay isha si gaar ah ula raacraacdo u fiiriso gabadhii yareed ugu dambeynna waxa albaabkii iskuulka ka soo baxday gabadhii yareed ee Nari deetana ayadoo dhool cadaynaysa ayaa waxay u tagtay inantii yareed waxaana uga bilowday ciddo may garanaysaa may xasuusataa waa gabadhii markii dhaweed kula hadlaysay ii waran iskuulkii maanta maxaa la idiin soo dhigay waaw dhar qurqurux badan innaba caadi ahayn bad xidhantahe meelero halkan may raaci kartaa waxaan ku soo tusi doonaa wax runtii aad ku cajab gelin doontood ka heli doontid adigu gabadhii waxa ay ku guulaysatay inay miskiintii yareed ee Nari ogolaato raacdo tii yareed ayay si degan gacanteeda u qabsatay isla mar ahaantaana ay ka haysatay maalintaasi wixii ka dambeeyay gabadhii yareed dib looma arag Nari qoyskeedii ayaa maalintii oo dhan sugayay ilaa ay habeenkii ka noqotay deetana intaasi kadib waalidiinteedii waxay bilaabeen markii arkeen inaanay gabadhii yareed gurigii imanaynba waxay la xiriireen maamulkii iskuulka iyo qaar ka mid macallimiinteedii hase ahaatee dhammaantood waxay u sheegeen inay araggooda ugu dambeysay waqtigii iskuulka laga fasaxay intaasi kadib waxay bilaabeen inay raadiyaan oo wareystaan qaar ka mid ah Nari asxaabteeda guryahoodii ayay ugu tageen hase ahaatee qaar ka mid ah Nari asxaabteedii ayaa waxay u sheegeen inay markii ugu aragti dambeysay ay gacantaas wada qabsadeen gabadhan yar ah isla mar ahaantaana ay isla socdeen adigu gabadha aad 20 ah ayay gacanta isqabsadeen oo isla socdeen runtii Nari qoyskeedii markii ay maqleen akhbaartaas iyo shakhsiga ay tilmaanta ka bixiyeen ee la socday gabadhooda markiiba waxay dareemeen werwer iyo inaanay arrintu caadi ahayn waxaana bilaabeen isla habeenkiiba inay arrinta gabadhooda ku wargeliyaan biliiska sababtuna waxay ahayd waqtiyadaasi Korea waxa ka caan ahaa dhacdooyin noocaasi oo kala ah oo qofka waa la afduubanaya deetana marka la afduubto waxa lala soo xiriiraya waalidiinta shakhsigaasi la afduubtay ayagoo isla mar ahaantaana ka codsan jiray dhaqaale aad u badan marka Nari waalidiinteedu waxay marar badan hore u maqleen dhacdooyin noocaasi oo kala ah markiiba biliiskii oo ay shaqadoodu tahay ka warhaynta iyo ilaalinta shacabkooda ayaa waxay bilaabeen inay dhagadegeeyaan oo la socdaan wacitaanada dibadda ooga imanaya laylankooda guriga yacni waxay isku dayeen inay dhageystaan qof waliba teleefankooda soo waca si shakhsigaasi marka uu soo waco ay dabagal ugu sameeyaan ay ugu tagaan goobta uu joogo haddaba sidii ayaa dhacday oo isla habeenkiiba saacado yaroon kadib telefoonkoodii guriga waxa soo wacay shakhsi aan la garanayn shakhsigan ayaa Nari waalidiinteedii waxa uu sheegay in ay gabadhoodii u caafimaad qabto 우리 애기 뭐 밥은 좀 먹나요?
intaasi kadib shakhsigaasi asagoonba hadalkiisii badin ayuu taleefankii dhigay. biliiskii waa ay maqleen, hase ahaatee shakhsigani taleefanka waxa uu dhigay si kediisa oo biliiskii umaana suurtagelin inay shakhsigaasi tracking ku sameeyaan ay ugu tagaan goobtii uu ka soo hadlayay. markiiba shakhsigaasi laba erey ayuu yidhi taleefankiina degdeg ayuu dhigay. haddaba shakhsigani naari qoyskeeda soo wacay waqtigaasi wax hantiya kamaanu dalban, waxba kamaanu codsan, keliya waxa uu sheegay inay gabadhoodii caafimaad qabto, taleefankiina waa u dhigay. taleefankiina mar dambe kumaanu soo celin ilaa ay qoyskoodii sugeen ayagoo aad ugu rajo weynaa inuu shakhsigaasi mar kale ku soo celiyo. haddaba wicitaankaasi markii ay ka soo wareegtay 20 saac ayuu shakhsigii mar kale lambar kale iyo goob kale ka soo wacay, balse doorkan shakhsigani pointigii uu rabay waa uu sheegtay. waalidkii gabadha yarayd ayaa waxay gabadhan weydiiyeen, maxaad rabtaa, ujeedkaad gabadha yar nooga afduubatay maxay tahay, danta aad leedahay noo sheeg. deetana gabadhani hadalkaba kumaanay sii dheerayna waxay tidhi, waxaan idinka rabaa $20,000. 원하시는 게 뭔가 좀 얘기 좀 해주시겠어요? 2천만 원을 준비해요. 2천만 원이요? 아니요, 시간 끌 것도 없고. 한다거나 딴 짓을해서 그 카드가 우리 손에 못 들어오면 그렇다면 나리는 못 보는 거지. 아, 그럼. yaa oo dee waqtigaasi $20,000na waxay ahayd lacag aad u badan. deetana codsiga ay gabadhaasi sheegatay waxa xoogay ka yar maamaaleeyo ka wareegay waalidkii gabadhi yarayd. gabadhii amaba si aftoobihii ayaa waxay tidhi, wakhtiga ha iga luminin, wakhti badan inaad iga sii lumisaan diyaaruma yihi. lacagtaasi ma keenaysaan haa mise maya? lacagtaasi haddii aad sida ugu dhaqsiyaha badan ii soo gaadhsiin weydaan gabadhiinii yarayd ee naari dib indhooma saari doontaan oo ma arki doontaan. arrintaasi oo walaaca qoyskii kor u sii qaaday. waalidkii gabadhii yarayd ayaa bal waxaa weydiiyey gabadhoodii inay caafimaad qabto. waxa u sheegtay gabadhu inay caafimaad qabto, balse aragtida gabadhaada waxay ga xigta adigoo lacagtaasi gacantay ka soo saara. balse haddana mar kale ma aanay sheegeen goobtii ay lacagtaasi ugu keeni lahaayeen oo taleefankii waa dhigtay. balse doorkan biliiskii waxay ku guulaysteen inay dabagal ku sameeyaan ay ogaadaan shakhsigaasi goobtii uu ka soo wacayay. biliiskii ayaa markiiba waxa u degdegay goobtii ay gabadhaasi ka soo hadlaysay. goobtu markii ay tegeen maba aha guri oo waa taleefanada wadooyinka ee shilimaadka yar lagu rida lagu hadlo, balse nasiib darro biliiskii waxay goobtii gaadheen dambiilihii oo aan joogin oo meeshiisaga baxsaday. intaasi kadib biliiskii ayaa waxay bilaabeen dadkii agagaarkaasi ka dhawaa inay su-aal weydiiyaan bal haddii ay arkeen gabadh yacni dhalinyar ah oo agaarka goobtan telefoonka garaacanaysay. deetana waxay tilmaameen qaar kamid a dadkii agagaarkaasi ka dhawaa inay arkeen shakhsi yaro gaaban oo daacadda 20-meeyada ah. macluumaad intaasi dhaafsiisan ma aanay helin. haddaba maalintii dambe ayay gabadhii mar kale waxay wacday hooyada gabadhii yarayd ee naari. waxay ku tidhi, haye lacagtii diyaar ma la tahay? ii sheeg lacagtaasi haddii aad diyaar la tahay, haddii kale mar dambe codkayga iyo codka gabadhaadaba ma maqli doontid. naari hooyadeed ayaa waxay tidhi, lacagtaasi waan kuu hayaay, ii sheeg goobtii aan lacagtaasi kugu keeni lahaa. oo ayadna gabadha yar sababtahay carruurta kale oga dhex xulatay ayaa waxay ahayd labiskeedoo runtii aad u qurux badnaa iyo jidhkeedoo si fiican u dhisnaa u muuqday shakhsi ka soo toosay guri ladan. oo tayar markii sidaasi ugu fiirsatay waxaas tidhi, kulliiba waxay tayar ka soo jeedaa qoys hantiilayaala. marka adigu naari hooyadeed waxay ku tidhi, waan kuu hayaa lacagta, ii sheeg goobta. deetana goobtii ayaa u tilmaamtay. goobtan waxay ahayd makhaayad kafeega laga cabo. markaa waxay tidhi, sida ugu dhaqsiyaha badan bartaasi lacagtay u keen hadda. islaantii ayaa waxaa isku dayday inay xoogay hadalka la sii dheerayso, hase ahaatee gabadhii ayaa ka shakiday oo ku xanaaqday oo tidhi, maxaad hadalka igu sii dhaadheeraynaysaa? ujeedkaagu muxuu yahay? ma waxaad isku daysaan inaad dabagal ku samaysaan? nasiib wanaag biliiskii waxay isku dayeen inay doorkan ka faa'iidaystaan oo muddadii ay telefoonka kula hadlaysay hooyadii waxay ku guulaysteen inay soo gaadhaan goobtii ay ka wicitamaysay amabase ay ka isticmaalaysa teleefanka. goobtaasina waxay ahayd goob coffee shop ah oo kafeega laga cabo. markiiba biliiskii waxay isku dayeen inay soo galaan meheradaas, balse biliiskii markii ay meheradii sidaasi u soo galeen waa arkeen teleefankaasi meeshii u yaalay. balse nasiib darro teleefankii waa ay dhigtay oo ugumaana iman shakhsigii oo weli kusii hadlaya. hase ahaatee biliisku weli waxay dareensanaayeen shakhsigaasi inuu weli ku jiro meherada. meheradaasina guud ahaan dadkii wakhtigaasi ku sugnaa gudaha meheradaasi waxay ahaayeen 12 qof oo qof ka mid a waxau ahaa wiil, 11 kalena waxay ahaayeen dumar. waxay yidhahdeen biliiskii waa hubaal shakhsigaasi inuu ku jiro 11kaasi gabdhood. waata saaxiibayaal, waan ogahay badankiinu ma jecelidiin muuqaalado inay aad u soo dhaadheeraadaan. halkaasi ayaan ku joojinayaa qaybtan oo qisadan waa inaynu 2 qaybood ka dhignaa. waxaa laga yaabaa daawashada muuqaal 20 daqiiqa soconaya inaadan waqti fiican u helin, inaad shaqaysanaysaa laga yaabaa. markaa qaybtani halkaasi ayaan kugu joojinayaa. sidoo kale ha hilmaamina inaad muuqaalka like saartaan, channelkana aad subscribe saartaan, welibana aad furataan gambalaalka. taa micneheedu waxa weeyaan muuqaalka xiga markaan sidaasi u soo geliyo YouTube ayaa idinku soo baraarujin doonta. qaybtan halkaasi ay ku ekaanaysaa, qaybta kalena waa idin diyaar oo wax sidaasi waqti usii qaadanaya maaha. wax yar umi ka dambeynaysa muuqaalkan waxba laga yaabaa waqti xaadarkan aad daawanaysid inaan qaybta kale soo geliyay ayadna sidoo kale haddii aan soo geliyay shaashada ayay kaaga muuqanaysaa. haddii kalena xagga hoose commentiga ayaan kuu dhigi doonaa amabase sanduuqa hoose descriptionka. imika iyo haatanna waxaa kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku xidhnow janalka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir.